waa wiilka ugu caansan Muqdisho. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabbaas. Toddobaadkan waxaa lagu arkay astaamo ka duwan wixii lagu yaqaanay. Waxaana ka mid ah astaamaha lagu arkay isagoo leh gaari nooca aysan xabadda karin. Ayuu ka doorbidaa inuu magaalada ku aado gaari dameer. Waa la yaab ka taagan. Kaamirada ayaa soo qabatay isagoo ku socda magaalada, haddana saaran gaari dameer. Faa'iza oo ah xaaskiisa ayaanu wax ka weydiinay la yaabka Cabbaas uu samaynayo. Waxaa sidoo kale aanu weydiinay halka uu geeyay gaarigiisii. Waxay noo sheegtay Faa'iza inuu gaarigiisa yaallo xaafadda, balse uu ka jecel yahay inuu wato gaari dameerka. waxaan ku arkay bilo ka hor sababtoo asigoo gaari buruuf qabo ayuu wuxuu ku soconayaa gaari dameer oo ku socdaa oo iga yaabi walaa lacagtiis nin lacag intaas oo lacag oo leeyahay gaarigiis buu ku gaari inuu ku socdo ma jeclo gaari dameer oo ku jecel gaarigiisa guriga iska dhex yaala wuxuu ku jecel gaari dameerka inuu wato. Waxaa intaasi ka sii daran inuu labis ahaan u jecel yahay macaawista lagu seexdo ee Soomaalidu u taqaano qarafleyda. Macaawistan lagu seexdo ayuuna ku aadaa magaalada. Waxa uu ka doorbiday dhammaan suudadkiisii iyo dharkiisa intiisa kale. Sidoo kale ma jeclo inuu xirto kobo. Mararka qaar waxaad arkaysaa isagoo kobihiisa ku wata gacanta. Muuqaalkan kale waxaa la duubay xilli uu ku socday masjidka si uu salaada casar u soo dukado. Waxa uu masjidka ku aadayaa gaari dameer. Sida aad maqlaysaanba waxaa dhacaya aadaanka salaada. La yaabka Cabbaas lagu arkay intaa oo keliya ma ahan. Hadda waxa uu waraysi la yeelanayaa lo'da fadhisa hareeraha waddooyinka. Talo waraysigan muxuu ku saabsan yahay? Aniguba waan isweydiiyey ee adigana soo qiyaas qaybta commentigana ku soo qor. Mar kale waxa uu waraysi la yeelanayaa ari. Markanse waxa uu Cabbaas inoo sheegayaa inuu yahay wiilka ugu quruxda badan Muqdisho. Quruxdiisana aysan ahayn mid la iska yeelyeelay ama la iska soo saaray oo ay tahay mid rabbaani ah oo Alle ku manaystay. Waxa uu dalbanayaa in goob fagaara la isugu yimaado si loogu tartamo quruxda. horta ani quruxdan waxa u dhashay waxa iska yeelyeelaya ma ahan qurax inaan qurxoonaado maanta aniga kaligay ma ahan marka waxa go'aansanay in hadda quruxdan ku tartamo waxa arkay gabdho badan oo sheeganaya iyo wiilal badan Muqdisho aniga u shidan meeshan shidnaashan tartan la galaa waxaan waa la kala baxaa meeshan u jeedin qof saas dhigi kor midin ku jira saastay tartan halis ah lagu jira qofkii dhaho meeshan isaa karintaas ku jiro anaga tartamada adduunka caalamka inaan la qayb galnaarna kaalmaha kuwad ka galno dad hadda waxay u malayaan ninkan waa shacaa dhahay waxaan wali maan quruxdan iska yeelma dhalad waay idib iskooba waxaan horumar la sameeyay waay haatanna waa Cabbaas oo wacanaya mid yaraantiisa ay iskula jireen dhaqan celis bilow dabiicadii isku ogeen yaa isgaaray markanna waa la yaab aad dhihi doontaan waa waalidii oo socota oo luga loo yeelay. Waxa uu inoo sheegayaa inuu jinniye ka saarayo farshaxanka lagu xayeysiiyo dharka dumarka. Waxaana uu markan joogaa goob dukaan ah oo dharka lagu iibiyo. waxa ka bixinayna injinigan oo ka baxo waxa isku dayaynaa inaan ka saarno ma ka bixaysaa awriya walaal liido saq dhexe adilamo ma qofatiin konton qof xagee ka imaadeen asalkiina liido yani la socday Yusuf Pakistan liido maxaa ka doonteen inaa maray doonto warkii hore war soo dhaaf. Faa'iza oo ah xaaska Cabbaas waxay noo sheegaysaa in la yaabkii ugu weynaa ay ku aragtay habeen hore markii saacadda oo sii dhaaftay 2 habeenimo kuna sii socota 3 habeenimo uu u sheegay inuu ku soo dabaalanayo xeebta Liido. habeen saq dhex waa qarwa habeen dhaxdaas ay soo qarwa xubada Liido dabaal oo 8 habeenimo ala socdaa wiilo baxay. Waa muuqaalka toddobaadkan ugu saameynta badnaa kani. daawadayaasha muuqaalkan aniga waan ku wareeray magacaan u bixiyo waan waayay bal idinkuna magac u soo bixiya wixii aragti ana qaybta commentiga waad ku maasan tahay haddii ilaa dhammaadka muuqaalkan aad nala joogtay
fadlan haddii aad beejka ku cusub tahay follow dheh, muuqaalkan sii sheer garee si uu saaxiibo badan u gaaro, iyagana ha ka soo aragti dhiibtaan la yaabka lagu arkay Cabbaas. Tan iyo muuqaalkan muuqaalka xiga, isma dhaafno.